سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمها بدن وكسر دوادا شيكدي لمغا بحدي مروغو يمدب تكور جاي. دابا أصحاب قيمها بدن وقيبتي لبات شيكدي لمغا بحدي مروغو يمدب تكور جاي وحان وقصو هذلني للشدي جورجيري. maanta waxaan uga hadli doonaa qaybta saddexaad ardaynimadii George ee dugsiga hoose iyo dadaalkiisii. fadlan subscribe channelka, share muuqaalka, like mahadsanid. haddaba dhagaystow 6 sano ayaa ka soo meertay dhalashadii George waxaana la geeyay iskuulka si uu u noqdo arday. wuxuuna fariistay fasalka koowaad ee dugsiga hoose. George wuxuu la soo baxay firfircooni iyo fahmo badani, wuxuuna nasiib u yeeshay inuu noqdo ardayga kaalinta koowaad ee sanad dugsiyeedkaasi. waxaana lagu abaalmariyay in George hooyadii laga joojiyo shaqada si ay u nasato. sanadkii labaad markii dib loo furay iskuulka ayuu sii waday dadaalkiisii iyadoo uu ku sawiran yahay bogga hore ee jaraa'idka loogana faalloonayo dadaalkiisii iyo aadaabtiisa. wuxuuna noqday wiil tusaale loo soo qaato. George sanadkii labaad ayuu haddana kaalinta koowaad galay, waxaana lagu abaalmariyey in aabihiis laga fariisiyo isagana shaqadii adkayd ee beer qodidda. George wiilkii madoobaa ee reer Zayid wuxuu magac ku yeeshay magaaladii, iskuulkii iyo xaafadii. wuxuuna ku madadaalan jiray xilliga iskuulka xiran yahay ciyaarta kubadda cagta oo uu la ciyaari jiray dhallinyarada xaafadda, kuwaasoo aad u jeclaa ciyaar wanaaggiisa. waxaa la soo gaaray furitaankii iskuulka ee sanadkii saddexaad. George halkii ayuu ka ambaqaaday dadaalkii lagu yaqiinay, wuxuuna mar saddexaad ku guulaystay kaalinta koowaad, waxaana lagu abaalmariyey in waalidkiis loo dhiso guri ay degaan kuna noolaadaan mustaqbalka. nasiib darro, George hooyadii waxaa la duray xirfadda madhalaysnimada oo inta badani gaalada u isticmaasho karanjoojiska, waxayna noqotay mid aan ubad kale dhalin George mooye. waxaase aad ugu farxeen guusha lama filaanka ah ee uu wiilkooda u soo hoyey kadib markii laga joojiyey shaqadii adkayd, gurina loo dhisay, cuntana la siiyey, taasoo u noqotay raaxo iyo baraare marka loo eego dadkii ay magac wadaagga ahaayeen ay beeraha la qodi jireen, kuwaasoo intoodii badani u dhinteen darxumo iyo cudurro aan laga daweyn. George laftiisa waxa uu aad ugu faraxsanaa isbeddelka xaaladeed ee ku soo kordhay nolosha qoyskooda, wuxuuna go'aansaday in uu dadaalkiisii waxbarasho sii wado, bal inay wax kale ku soo kordhaan. George waxaa loo furay sanadkii afaraad ee iskuulka, wuxuuna ku bilaabay isagoo dareemaya farxad dheeraad ah, taasoo kor u sii qaaday dadaalkiisa waxbarasho. George intii uu ku soo dhex jiray waxbarashada wax caqabad ah kalama kulmin, walow ay marmarka qaar maagi jireen arday kale oo caddaan ah oo halka ay kuwa kalena ku difaaci jireen aqoontiisa gaar ahaan kuwa la fasalka ah. maxaa yeelay inta badani tartamada iskuulka ayuu guulo ka soo hoyin jiray, taasoo uu ku kasbaday taageerayaal difaaca. waana wax loo baahan yahay in ay ardaydu ilaaliyaan ardayga sidaas oo kale ah. George sanadkii afraad wuxuu ku guulaystay kaalinta koowaad, waxaana lagu abaalmariyey in waalidkii shaqo la siiyo si ay uga raadsadaan nolol maalmeedkooda. waxaa la xiray iskuulkii. xilligii uu iskuulka xiran yahayna waalidkii ayuu caawin jiray. qoyska George waxay markani u muuqdeen qoys degan oo la mid ah qoysaska magaalada la degan, waxayna dhex galeen nolol ay u haysteen inay u tahay raaxo marka loo eego dhibkay ka soo mareen addoonsigii.
waalidka dhala George waxay ugu duceeyeen guusha wax ku oolka ah ee uu soo hiyey wiilkooda uguna baxeen midkii lagu hayay ee adoonsiga ahaa waa hagaag haddaba dhegaystayaal la soco qaybta afaraad ee sheekadii la magac baxday murugo iyo midabta koor jacayl iyo halabuurkii ustaad Cabdullaahi Macalin Axmed Timacade waa tamintii Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC oo idin leh nooli kulan